puntland iyo badan ka dhexeeyay xiriir dhaqan dhaqaale waxayna lahaayeen xiriir dheer oo ganacsi oo soo jireena ganacsatada puntland waxay dalka Yemen u dhoofin jireen xoolaha nool beeyada iyo kalluunka inta badan dalka Yemen waxa laga keenaa badeecooyin kale oo ay ka mid ahaayeen sharaabka buskudka dharka kabaha iyo shidaalka dadka puntland dalka Yemen sidoo kale waxay u aadi jireen arrimo caafimaad iyo mid waxbarasho puntland iyo dalka Yemen waxay leeyihiin xuduud dhinaca badda oo 180 mayl oo kaliya taas ayaa keentay in badeecadaha dalka Yemen laga keeno ay ka qiimo jabnaayeen badeecadaha dalalka kale laga keeni jiray maxamed cabduqaadir waa maamulaha shirkadda albixaar oo fadhigeedu yahay magaalo ganacsiga puntland ee boosaaso taasoo badeecooyinka ka keeni jirtay dalka Yemen maxamed waxa uu sheegay puntland TV in bil kasta 3 doonyood oo badeecooyin u soo puntland ay iman jireen dekada boosaaso kuwaasoo badeecooyinka ka soo qaadi jiray dekadaha Mukulla iyo Makha ee dalka Yemen ganacsigaas hadda waa istaagay bakaaradii keedin jiray badeecooyinkaasina waa faaruq iminka ganacsi aad u xajmi weyn buu ahaa saddexda dekadood ee Mukalla iyo Cadan iyo Makhaba ganacsigu ka imaan jiray ugu yaraan bishii ugu yaraan 3 doonyood 4 doonyood oo alaab ka keenaysa iyo intaas oo halkan wax ka qaadayso xoolo geynaysa ayaa meesha buu xajmigiisu dhamaa waxyaalahan ka keeni jirnay saabuunta wardada la yiraahdo oo isugu jira powder iyo saabuun dhagax isugu jira baan ka keeni jirnay waxaanu ka keeni jirnay nacnacyo nacnac qori nacnac malab nacnacyo badan oo kala gedsan baanu ka keeni jirnay waxaanu ka keeni jirnay buskudyo sida buskudka abu waladka waxaan alaabo fara badan baa laga keenaa anagu waxaanu ka keenay wax dad kala keenaanba fiimta ka imaan jirtay waxa ka imaan jiray kabaa soo mari jiray oo laga keeni jiray meel ka macnaa wadamo kale laga keeni jiray saliida ka imaan jiray wixii oo dhan oo ka imaan jiray iminka way joogsadeen ganacsiga ku salaysan wax kala bedelashada iyo wax isweydaarsiga u dhaxeeyay Yemen iyo Puntland waxa uu ahaa sanadihii u dambeeyay mid soo kordhayay iyadoo 30% ganacsiga Puntland uu ka iman jiray dalka Yemen kaasi oo adag tahay in la helo suuqyo kale oo bedela kuwii Yemen ay Puntland ku lahayd gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland Maxamed Caydiid Jaamac waxa uu aaminsan yahay in lacag adag oo xadigeedu uu aad u badan yahay in Puntland ay ka soo gali jirtay dalka Yemen in fact inagu waxaan u dhoofin jirnay xoolaha nool beeyada suwaga sisinta iyo kalluunka ugu badan oo suuqa aan geen jirnay kalluunka Puntland ka soo baxa wuxuu ahaa suuqa Yemeneed iyaguna waxay noo soo dhoofin jireen sharaab fara badan saamuunta buskudada weelka caagadaha kabaha dharka iyo barafuunada wax la mid ah lacag adka oo ka soo gali jiray dalka Yemen oo in fact laga soo noqon jiray qaybna wax lagu soo ibsan jiray way yaraanayaan badeecadii inagu aan u dhoofin jirnay oo xoolihii noolaa way istaageen ilaa marada meeshii dhibaato ka jirto qofkii kuma aamini karo saas oo kale doonyo badnaa oo kalluunka ka shaqaysan jiray oo dhowr boqol oo doonyood oo dadka reer Puntland leeyihiin ayaa Yemen kalluunka keen jiray iyaga laftooda wax ka soo qaadi jiray kuwa laftooda waa istaageen doonyaha xeebaha ay tuman yihiin marka dhibaatooyinkaas oo dhan waxa weeye kuwa ay keentay colaadda Yemen ka dhacday maxamed cabduqaadir oo madax ka cadaalada wax soo dejinta ee rugta ganacsiga Puntland waxa uu leeyahay khasaare badan ayaa Puntland ka soo gaari kara haddii uu sii socdo dagaalada dalka Yemen waxa uu rajo badan ka qabaa in dagaalku istaago ganacsiguna dib u soo laabto waxa weeye khasaare uu jira lacagihii 2 bilood ka hor la diray ilaa maanta Yemen bay ku maqan yihiin gaadiidkii soo qaadidaha iyo warshadii wax sameyn lahaa labadaba way istaageen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Yemen dajiyo si aanu shaqooyinka aan uga qaban jirnay aan uga qabanno xoolihii la geyn jireen la geeyo haddii dagaalku dheeraado laakiin waxay noqonaysaa sidii farsamo loo gali lahaa ama meel kale loogu wareegi lahaa waa lagu khasbay ganacsiga kalluumaysiga ayaa ahaa sidoo kale ganacsi ballaaran u dhaxeeyay Puntland iyo Yemen inkastoo aan la ogeyn qiyaas ahaan iyo tanka kalluun ee Puntland ay u dhoofin jirtay dalka Yemen
haddana guud ahaan degmooyinka ku yaala xeebaha Puntland waxay kalluunka ka iibin jireen ganacsatada dalka Yemen ganacsiga oo hadda istaagay iyo sidoo kale shaqaale badan iyo doonyo badan oo ka shaqayn jiray kala iibinta kalluunka oo hadda shaqo beelay